صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. مدنيال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan gudaha iyo dalka dibadiisaba. dhammaan waxaan salaamayaa culamaa diinka, xildhibaanada, dhalinyarada Soomaaliyeed oo haween iyo rag iyo haweenba leh. meel kasta aad joogtaan waan idin salaamay. waxaan rabaa hor iyo horaan inaan mahad gaar ah u jeediyo shacbiga Soomaaliyeed kana raali geliyo dii wax dhibaato ah ama murugtii iyo walwalkii ayaamahan asmadan jirtay ayna soo martay ay adkaysigeeda ay yeesheen. waxaan ka codsanayaa in arintaasi waxaan ku wargelinayaa in arintaasi ay dhamaatay. waxaana ka codsanaa haddii wax oo murug iyo walwal iyo ay ka soo gaartay inay ka raali ahaadaan, taasoo hadda alxamdulillaah oo aan isla meel dhignay oo ay dhamaatay. waxaan aad u tixgeliyey talooyinkii badnaa oo dadkii oo quraanka akhrinayay intii duceynaysay kulligood waa mahadsan yihiin, iyo talooyinkii badnaa iga soo gaarayay muddadii azmada ay socotay. dhammaan wixii talooyin aad soo gudbinayseen waxaan ka soo qaaday hal erey oo ah war hala kala roonaado ayaa ku soo koobteen talada shacbiga soo gudbiyey. intaasaan ka qaatay, saa daraaddeed ayaan go'aan uga gaaray in aan xilhayntii golaha shacbiga aan u hahay inaan haddii aan la yidhaahdo berito oo arbaco ah maalinta arbacada 11 bisha inaan xilkaasi iyo ammaanadaasi oo horey ay igu dhiibteen alla ka sokow ii dhiibteen xildhibaanada golaha shacabka inaan ayaga u celiyo berito haddii ay bixid. waa laga maarmaan shacbigeena in loo naxo. ma qaadi karo shacbigeena in marka murugo badan iyo dhibaatooyin badan lagu sii eego ma qumana. saa daraaddeed waxaan go'aansanay in arintaasi aan uga roonaano. waxaa kaloo aan rabaa in aan marta kulligooda ku baraarujiyo ama xusuusiyo Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliyeed annagoo dhan way naga wada weyn tahay. mar walba waxa weeyaan waa dowlad curdan nahay in loo naxo, in marta la taakuleeyo, in mar walba wixii wax ka soo gaaraya in marta shakhsi ahaan wixii ah la hilmaamo. danta guud iyo wanaagga guud ee Soomaaliya in laga raaco ayaa lagama maarmaan ah. ma aan doonayno in dhibaatooyinkii laga soo baxay muddooyinkii ku meel gaarka ahaa iyo arrimihii guulihii in lagu noqdo iyo guulihii aan gaarnay oo la baabi'iyo waa arrin aan loo adkaysan karin, marna aan yeeli karin. arrinta kale oo aan weligay ilaa Agoosto bishii Agoosto 2012 markii xilka golaha shacbiga la ii dhiibay arrimaha mabda ah aan ku adkaysanay oo markaa ilaa haddan aan ku adkaysanay waxay tahay in aan mar walba iska ilaalino faragelin shisheeye. in marta arrimaha Soomaaliya dhexdooda ka dhaco in magaalooyinka magaalo madaxyada dalalka aan dariska nahay in loo aado arrintaasi ma ogolin. wixii mushkilo ah waxaanu leenahay golo shacbi oo shacbiga ka wakiil ah gaari kara go'aankii uu rabo, alla ka sokoon ayaga uga sareeya. Soomaaliya mushkiladeeda Soomaaliya xallin karta, faragelin shisheeye ida loo ordaayo waan ka soo horjeednay, waan ka soo horjeednaa, mana yeelayno. annaka dhamaysan karno Soomaaliya ayaa waxaa garaad u leh garanaya shacbiga Soomaaliyeed iyo wakiiladiisa dowladdiisa iyo madaxdiisa. marka saa daraaddeed waxaa weeyaan waan ka sariiganay, waan ka gadoodnay, waan ka diidnay in marka faragelin shisheeye ay soo gasho xaalkeen annaka dhamaysan karna. marka idinku badin maayo. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaamiciyiinta ah oo intaa telefoon soo diray mar walba iga weydiinaya qodobka maxaa loogu dhaqmi waayay, sida maxaa loo yeeli waayay. marka ayagana inay arkaan in dimuqraadiyada dhaqanka dimuqraadiyadeed oo aanu hirgelinay ilaa ay hadda aanu gaarnay shacbiguna dhadhamiyey in banduuq aan lagu hadlaynin, mar walbana dood wada xaajood iyo codayn lagu kala baxayo. inay arkaan in mar walba nabad iyo ilaalin qaanuun iyo dastuur iyo sharciga aan dejisanay iyo shareecada islaamka iyo dhaqanka suubanay Soomaaliyeed in mar walba la tixgelinayo. oo madaxdii beritaan tihiin dhalinyarooy waxaad yeelaysaan mar walba waxaa furan waddo nabadgelyo, waddo amni, waddo oo marta is-afgarasho, waddo isu tanaasul ayaa mar walba furan. marka aan ka ilaalino dowladdan curdanka ah inay dib u noqoto. saa daraaddeed wixii hadda waxaan rabay kaliya inaan idin xaqiijiyo, madaxweynahan u xaqiijiyo
in aan xilka ka wareegi doono berito haddii aan yidhaahdo markii ammaanadii oo ay ii dhiibteen xildhibaanada aan u celiyo inay rasmi tahay ayaan rabaa inaan u sheego inta aan kusoo koobo wixii kaloo dheeraad ah waxaan ku fasiri doonaa hadal jeedintayda berito aan ka jeedin doono golaha shacabka marka aan xilka iyo ammaanada aan u celin doono aad iyo aad baad u mahadsantihiin madaxweyne kusoo dhawo